aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan aad qaaliga u ah iyo intii soo qaban qaabisay oo ugu horeeyaan maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo dhammaan shacab weynaha gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. waxaan marka hore isugu wada hambalyeynayna dhammaanteen meel aan joognaba reer Galmudug inay noo dhamaatay doorashadii sidii loogu talagalay nagu soo dhamaatay waqtigii loogu talagalay ku dhamaatay si habsami leh aad iyo aad u sareysa na ay nagu soo gabagabowday meel walba la joogo waxaan leenahay hambalyo. waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaynaa xildhibaanada labada gole ee laga doortay Galmudug. waxaan leenahay xildhibaano hambalyo xilka la idin doortay oo mas'uuliyadda ballaaran ah na Allah idinku asturo, Allah idinku guuleeyo kuwii dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeeya waa waad ugu shaqeynaysaan Allah idinka dhigo. waxaan rabaa inaan halkaan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo guddiga doorashooyinka qaybahooda kala duwan siday doorashadii u daadihiyeen hawshaa dhibka badan u soo maareeyeen shaqadii loo idmaday uga soo baxeen. waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaadna mudan tihiin abaalmarin iyo dowr laba ilaa waana oo dadka reer Galmudug idin hayaan. waxaan rabaa sidoo kale halkaan inaan ka ammaano runtii dadka reer Gaalkacyo shacab weynaha reer Galmudug reer Gaalkacyo oo doorashadii waqti dheer kadib Gaalkacyo ka dhacday si wanaagsan noola shaqeeyey guddiyada ula shaqeeyey si aad u sarreyso runtii xadaarad iyo ilbaxnimo ku jirtana u shaqeeyey inaan dhaaro waa mahadsantihiin qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gaalkacyo. si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo salaadiintii iyo odayaashii dhaqanka dhammaan qaybihii kala duwanaa ee doorashada ka qayb galay oo runtii mar walba muujinayay inay si wanaagsan oo habsami leh doorashada u dhacdo wax badanna maareynayay xallinayay u taagnaa kuna gacan siinayay guddiyada doorashooyinka iyo dowladda Galmudug siday doorashada ku qabsoomi lahayd. aad iyo aad baan kugu ammaanaynaa. waxaan runtii rabaa inaan idhaahdo annaga aad baan raalli uga nahay shacab weynaha guud ahaan reer Galmudug gaar ahaan Gaalkacyo. rag iyo dumarba waxay muujiyeen mas-uuliyad ay taariikh u leeyihiin oo ay runtii ka soo baxeen. sharaf bay noo wada tahay inay Gaalkacyo 68 kadib doorashadii ka dhacday Gaalkacyo oo Galmudug ka dhacday. waxay ahayd deegaan doorashadii labaad. mar walba waxaa dad badani ka lahaayeen meel aan ciidamo ajnabiga joogin ciidan aad u tiro badan joogin deegaan doorashada labaad oo Galmudug ah sidii xildhibaan odagaa sheegay meeshaan dad oo xaniya badan joogaan sidee doorasho lagu qaban doonaa. aniga waxaan aaminsanahay ayna sax ku tahay inay ka dhacday doorasho ka duwan Galmudug inteeda kale iyo Soomaaliya inteeda kale oo ay ugu muhiimsan tahay inay doorashadu ka socotay habeen iyo maalin saq dhaxana la is dooranayay oo habeenimo si nabadgelyaana ku dhacday doorashadii. runtii doorashadu way ka dhacday caasimadda Galmudug si wanaagsanna waa uga dhacday. laakiin waxaa la islahaa caasimaddu waa meel dowladdu degan tahay waa meel ciidamadu ku badan yihiin waa meel taxadar badan ka jiro. guud ahaan Galmudug waxay doorashadii nooga dhacday annagoo gacan kula tacaalayna oo kula dirirayna argagixisada gacanna
abaaraha iyo dhibaatada dalka ka jirta kula tacaalayna gacanna doorashadeena si amni ugu qabsanay sida la sheegay annaga amisom iyo ciidamo ajnabiya oo gooni galmudug howlgalaa ma jiraan ciidamadeena amniga waxaan rabaa halkaa inaan ammaan runtii uga soo jeediyo oo hogaaminayay ugu sarreeyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska saraakiisha qaybahooda kala duwan taliyaha ciidanka booliiska galmudug taliyaasha booliiska gobollada taliyaasha nabad sugidda milatariga daraawiishta dhammaan qaybaha kala duwan iyo ciidamada waxay muujiyeen mas-uuliyad dheeraad ah waxay la yimaadeen karti ay amniga ku xaqiijiyaan ayadoon ognahay cadowga ay doorashadu leedahay ayadoon ognahay argagixisadu waxa ay dabin u maleegaysay doorashadan waxay xaqiijiyeen ay amni ku dhacdo waxay leeyihiin dadka reer galmudug waxay naga mudan yihiin abaalmarin iyo xusuus gaar ah saraakiishii iyo ciidamadii dhammaan xaqiijiyey amnigaas annagoo ilaahay ku mahadinaynaa oo amniga alla uga mahadinaynaa runtii waa lagu dadaalay aad iyo aad ay arrintaas waxay u ahayd waxaan leenahay waa la tartamay dad badan baa soo doontay kuraasta in ku guulaysatay ama heshay iyo inaan helin intii heshay ku guulaysatay waa u hambalyeynaynaa intii aan helinna waxaan leenahay nasiib wanaagsan marka dambe ad heli doontaan insha allah haddaan intaas uga baxo xildhibaanadii la doortay xildhibaanadii labada gole ee la doortay hambalyo iyo bogaadin kadib waxaan leenahay xildhibaanada marka deegaanada laga doorto 4 sano kadib ay kusoo laabtaan ayagoo in badan maqnaa kuwii horta alla idinkama dhigo deegaanada la socda si dhow ula socda sidii hore loo sheegana isku xirnaada baahidooda duruufahooda inta ku xiran dawladda dhexe la socda dawladda galmudugna ku gacan siiya oo ku garab istaaga horumarinta iyo horu socodka iyo inay galmudug aad ugu timaadaan 4 sano dambe meel halkaan ka sii sarreysa sanadkan waxaa la doortay xildhibaanada labada gole oo lagu jilba murxay oo sida la wada qiray ay yihiin dad aad u sarreeya Soomaali ka dhex muuqda siday ku soo baxeenna anigu isku ammaani mayo waxaan qabaa kalsooni xubno iga aragti duwan siyaasadda isku meel aanan siyaasadda ka wadin aan yeelano inay u soo baxaan galmudug waxaanan aaminsannahay kala duwanaanshuhu waa waqti kooban waxgalnimaduna waa waqti dheer marka sidoo wax u galaan ka firaynaa ee kama eegayno kala duwanaanshaha marka xildhibaanadaas dardaaran baan idinku xoojinaynaa deegaanada ka shaqeeya u shaqeeya dawladda galmudugna la shaqeeya adinkuna isku xirnaada rool la yaqaan oo sidii laydinku yaqaano taariikh u lahaydeenna doorashada heer qaran ka qaata doorashadii way daahday 1 sano ayaa doorashada dalka dib dhacday muddadaas dibdhac uu yimidna wax badan baa dalka dibdhacaasi u keenay oo runtii jiitanka doorashada uu geystay caaway waktigii ugu dambeeyey in badan baa dibdhacyimada waqtiyadeeda la bedelay waktigii ugu dambeeyey oo la qabtay waa midka ay galmudug ku soo dhammaystirtay xildhibaanadii labada gole waxaan rabnaa dalka inuusan mar jid dambe u noqon xildhibaano ku filan iyo hawl iyo in ku filan doorasho waa diyaar waxaan doonaynaa in doorasho hore loo galo
oo aan dalka lagu celin ama uusan ku sii jirin jiitan dambe iyo dibdhac dambe annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan doorashada u bilownay waktigii loogu talagalan u dhammaynay waxay ahayd waktigii ka lumay dalka inuusan dib uga sii lumin oo doorashadii la galo oo saaxiibadii beesha caalamka oo Soomaaliya gacan siinayay aysan niyad jab intaa ka badan nagu qabin oo Soomaalidu dhibaato intaa ka badan ku sii jirin doorashada inay qabsoonto wax badan baa ku xiran waxa ku xiran la dagaalanka argagixisada waxa ku xiran la dagaalanka abaaraha iyo dhibaatada waxa ku xiran dalku inuu hore u socdo inta aan sheegnayna way ka faa'iideysanaysaa dib u dhaca iyo kala daadashada iyo jidka doorashada oo ay ugu daran tahay argagixisadu saas darteed intaan qabno dalku intuu dib u dhac qaba ku filan wax kalena uma noqdaan waxaan doonaynaa maadaama uu dhammaaday waqtigii ugu dambeeyay la soo qabtay doorashadii hore loo galo si waafaqsan nidaamyadii iyo hawlihii iyo heshiisyadii la galay ayna dalku ka baxo kala dabcaas iyo jiitankaas soo jeeday muddada dheer taasna aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa aad baan u doonaynaa waxaanan isleenahay waqtiba uma baahna la sii wado waxay u baahan tahay haddaba in hore inta laga iclaamiyo